السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب السوداء أصحابته وحين السعودي عشرة تحنها oo aynu kaga hadlaynay barashada xisaabta khaasatan dugsiga sare chapterkiisii ahaa trigonometry waxa aynu isla soo fiirinay casharo aad u fara badan hadaba maanta waxaan isla fiirin doonaa ciwaan kale oo kamid ah trigonometry-ga ciwaankaas oo ah minutes and degree horta minutes iyo degree wax la yiraahdaa waa waxyaalo kale oo lagu cabiro xaglaha tusaale ahaan oo kale waxa maqlaysaa wax la yiraahdo xagal waxay dhan tahay 50 degree baa maqlaysaa sidoo kale waxa laga yaabaa inaad maqasho xagashaasi wax la yiraahdo waa 50 minutes baa laga yaabaa mid saddexaad baa jiro oo xaglaha lagu cabiro oo la yiraahdo 50 rad oo laftigiisu wax la yiraahdaa aynu gaari doono hadaba maanta waxaan isla fiirin doonaa minutes-ku iyo degree-gu qaabka aan isugu bedeli lahayn waa ku sheegay minute-ku waxa la yiraahdaa waa halbeeg kale oo lagu cabiro xaglaha inta ay dhan tahay 50 degree 60 degree 180 degree sida audio ku dhawa waxa oran kadhaa 50 minutes 60 minutes 180 minutes labadaba waa lagu cabiri karaa sidoo kale mid kale oo saddexaad baa inoo iman doona hadhow isaguna raad la yiraahdo waa halbeeg saddexaad ee lagu cabiro xaglaha salaajada maanta waxaan isla fiirin doonaa qaabka aan isugu bedeli lahayn minute to degree qaabka aan isugu bedeli lahayn يعني waxaan ku sheegay waxaan ku raaksan qaacida ku qor waxaan ku yiraahday hal degree waxa uu u dhigmaa 60 minutes biri hal degree mi soo dhigmaaya 60 minutes hadaba qaacidada anagoo isticmaali doona baa waxaan ka shaqeyn doonaa oo isku bedeli doonaa intaynu minutes baa waxaan u bedelaynaa degree baa waxaan u soo bedelaynaa minutes yani waa maxay labada dhinac upward iyo forward labadaba waan soconaynaa hadaba example baynu soo qaadanay waxa lagu yiraahday change waxa u bedeshaa into minutes baa u bedelaysaa waxyaalahan soo socda minutes baa u bedelaysaa dhamaantood marka wax leedahay waa inaan degree ku wada cabirnaa afwan dhamaantood waa inaan degree ku wada cabirnaa hadaba waxaan rabaa inaan bedelo laba degree baan waxaan rabaa inaan u bedelo minutes hadaba tan koowaad baan ka shaqeynayaa hore waxa uu haysatay oo xeerkaaga wuxuu ahaa hal degree waxa uu ila dhigmayaa 60 minutes hadaba imisa adigu haysataa laba degree xaga ku qor laba degree imisay ila dhigmaysaa kadibna cross multiplication intaad isticmaasho qiimo uu ku soo baxaya hal baa maxaa ku dhufanaysaa x waa x fiiri degree-ga iyo degree-ga waa isla baxayaan si ay isla baxayaanna waa ku tusayaa fiiri ama caadi aan ku tuso fiiri labadaas markaan isku dhufto waa maxay waa hal degree oo lagu dhuftay fiiri hal degree oo lagu dhuftay x waxa ay la macno tahay laba degree oo lagu dhuftay 60 minutes degree-gaas iyo degree-gaas marka taas ay isla baxayaan x marka waxa ay la mid noqonaysaa laba oo lagu dhuftay 60 120 minutes marka fiiri hal degree hadduu ila dhigmo 60 minutes laba degree-na waxa ay la mid noqonaysaa 120 adigoo qaacidada isticmaalaya baynu ku soo saari karnaa hadaba teena labaad markaynu gudubno example-adan ku tusaayo waxa la yiraahdaa waa example-da fiiri markii hore mid caadi aynu ka shaqeynaa hadda waxaan ka shaqeynaa fraction baynu ka shaqeynaynaa yani maxaynu ka shaqeynaynaa fraction baynu ka shaqeynaynaa marka يعني waxaan kugu tusayaa tira waxa la yiraahdaa dhameystiran fraction baa kugu tusayaa tira waxa la yiraahdaa jaja baan kugu tusayaa tira waxa la yiraahdaa power aan kugu tusayaa ay nooc baan kugu tusayaa si hadda waxa la yiraahdaa hadba qaabka rabto waxa la yiraahdaa aad ugu dabaqan lahayd hadaba keena labaad markaan soo fiirino 8 1/4 oo degree baan rabaa inaan u bedelo wax weeyaan minute hadaba shaqada koowaad aan qabanayso waxa weeyaan 1/4 kaasi waa inaad bedeshaa waa inaad qaybisaa isu qaybisaa oo aad dhahdaa yani waa maxay waa 1 oo loo qaybiyay afar يعني marka isu qaybiso 0.25 baa kaga soo baxaya division meesha ku baramayno waa 0.25 isku dar marka 8 oo lagu daray 0.25 wax leeyahay waa 8.25
markaasaan waxaan leeyahay 8.25 degree imisa ayay ila mid noqonaysaa kadibna waxa la yiraahdaa cross multiplication kaaga isticmaal waxay noqonaysaa fiiri x waxa ay la mid noqonaysaa 60 oo loogu dhuftay 8.25 x na waxa ay la mid noqonaysaa 8.25 oo loogu dhuftay 60 waxa kaaga soo baxaya 495 minute baa kaaga soo baxay fiiri marka 8 degree waxa uu dhigmaa 495 minute buu dhigmaa iyadana waxa la yiraahdaa asxaabay qaabkaasi baynu kaga shaqeyn doonaa keena saddexaad fiiri fraction baa hadda ku tusay haddana waxa ku tusaya iyadoo wax la yiraahdaa ay tahay decimal point iyadoo wixii ay ku jiraan haddaba waxaan rabaa 0.03 degree imisa ila dhigmay waxaan leeyahay 0.03 degree imisa ayuu ila dhigmayaa x kadibna waxaan isticmaalayaa waxa weeyaan cross multiplication baan isticmaalayaa x waxa ay la mid noqonaysaa 0.03 oo loogu dhuftay 60 minute x na waxa ay la soo baxaysaa 1.8 مية 0.03 times 60 1.8 sababtoo ah boontigaas halkaas u imanaya 3 ku dhaw 8 boonti soo gali 1.8 minutes 1.8 minutes tan ku sii xigta aan isla sii fiirino waxa maanta la siiyay wax iyadoo power baa lagu siin doonaa imtixaanka qaab qoro macna ku siinaya hadii power lagu siiyo marka power kan anigu haysto fiir waxaan haystaa 10 - 3 macnaheedu minuskaasi waxa uu ka yimaaday wax mayaan yani hooseeya ka timaaday asalkeedu waxa ka timaaday hal oo loo qaybiyay 10 bala saasi ahayd kadib maadaama aan rabo inaan kor geeyo maadaama ay plus tahay waa inaan negative ku geeyo aan dhaho 10 - 3 waa sababta tirooyinka haday markaan lahaa 9 oo loo qaybiyay cos aan u lahaa waxay kor adaan rabo inaan geeyo maxay noqonaysaa cos -1 9 yani waa maxay waa sababta aan haday saa u lahaa marka yani haday oo dhan xisaab trigonometry aan ka soo shaqeynayna waxaan lahayn cos inverse yani inverse ku macnaheedu waa maxay tirada tani hooseeya ahayd kor baan geeyay weeyaan sidoo kale tirada iyadoo kor negative ku joogta hoos positive bay ku tagaysaa yani hadda waxa filayaa taasi inaynu isla fahanay kadib waxa la yiraahdaa tani maxay la sii dhigantaa waa hal oo loo qaybiyay 10 oo 3 jeer la isku dhuftay waa maxay 10 oo lagu dhuftay 10 oo lagu dhuftay 10 waxa ay la sii dhigantaa hal oo loo qaybiyay kun kadibna labada hadda isu qaybiso waxa ka soo baxaya 0.001 baa kaaga soo baxaya maxaa kaaga soo baxaya 0.001 qaabka ay ku timaatay wax la yiraahdaa mar rabo inaan afaaraha galo sababtoo ah barameyno divisionka barameyno multiplicationka waxa ay nooga soo baxay halkaas waxa weeyaan waynu soo xalin marka kooda inaan shaqada saa soo qabsataa hadii power lagu siiyo waa inaan saa ula soo baxdaa waxa ay nooga soo baxay 0.001 degree waxa ay la macno tahay x kadibna cross multiplication x waxa ay la macno tahay 0.001 oo lagu dhuftay 60 boontigaasi uu soo dilacsiinayaa 0.001 times 60 waxa kaaga soo baxay x waxa ay la mid noqonaysaa 0.06 minutes 0.006 minutes weeyaan tan u dambaysa markaan isla fiirino iyadana maanta wax la yiraahdaa waa power laakiin powerkaygu maanta negative ma aha macnaheedu waxa la siiyay 10 power 2 kadibna waxa la dhigan tahay 10 oo lagu dhuftay 10 yani waxay la macno tahay 100 degree hada waxa is weydiinayaa 100 degree na imisa ayay ila dhigantaa cross multiplication x waxa ay la macno tahay
boqol oo lagu dhuftay lixdan waxaa la yidhahdaa x waxa ay la macno tahay 6,000 oo minute bay la macno tahay يعني أصحابي waxa la yiraahdaa macalinku ha ku siiyo tira caadiya ha ku siiyo fraction ha ku siiyo decimal place ha ku siiyo power positive and negative qaabku macalinku ku siinaya ha ku siiyo sidaasi iyo qaabkaas wax la yiraahdo baynu ku xalin doonaa hadii Ilaahay qadaro ka marka hadii ka baxnay waxaan isla fiirin doonaa hadiina la siiyo ka wara minute oo loo degree u celi iyada sidee baan ugu xisaabin doonaa waxa lagu yiri 180 fiiri waxa lagu yiri 180 minute inuu soo dhigma maanta 180 kayga ma dhinacana ku qoraya mise dhinacaan ku qoraya waxaan ku qorayaa dhinaca wixii isla baan xisnay maanta minute baan haystaa halkaas aan ku qornay waxa leeyahay 180 minute maanta tan waxa leeyahay x baan u bixinaya cross multiplication baa isticmaalaya waxa leeyahay 6 oo lagu dhuftay x waxa ay la macno tahay hal oo lagu dhuftay 180 dhinaca kastana waxa uu qaybinaysaa 60 dhinacana waxa uu qaybinaysaa 60 waa isla baxayaan labadaas x na waxa ay la mid noqonaysaa labada eber isla saar 3 degree 3 degree way kula mid noqonaysaa hay kula mid noqonaysaa 3 degree adigu kuwa isla oo isku hoos qor cross multiplication isticmaal isku dhufo ama isku qaybi labada option mid ku banaanaanaya tan ku sii xigta aan isla fiirino afar boqol iyo konton minute baan haystaa minute kan ku hoos qoraya afar boqol iyo konton minute halkana waxay noqonaysaa x waxay noqonaysaa 60 oo lagu dhuftay x waxa ay la macno tahay hal oo lagu dhuftay afar boqol iyo konton waa afar boqol iyo konton keedii fiiri labada minute baa doona isla baxaya meesha degree calaamadaas ugu soo haraysa kaliya dhinaca kasta waxa uu qaybinaysaa 60 dhinacana waxa uu qaybinaysaa 60 way isla baxayaan x na waxay la macno tahay labada eber waa isla baxayaan afartan iyo shan oo loo qaybiyay 6 baa ku soo baxaysa 7.5 degree 7.5 degree tan ku sii xigta aan isla sii fiirino yani waxa waa easy aad bay u fududahay kaliya hadii xeerka wax la yiraahdo aadan khaldin processkana wax la yiraahdaa aad si fiican u qodho jawaabta boqolkiiba 99 waxaad awood u leedahay jawaabta inaad soo saarto hadda maanta waxa la isii fraction baa la isii maanta oo waxay tahay 3/1/7 minute oo loo qaybiyay x shaqada koowaad aan qabanaya 1/7 waa inaan soo qaybsadaa weeyaan hal hal oo loo qaybiyay 7 waa 0.14 0.14 ki 3 baan ku darayaa 3.14 shaqada koowaad labada is soo qaybi halka waxa kaaga soo baxaya marka labada isu qaybiso 0.14 kaagi wax ku darsanaysaa 3 waxa ku soo baxaya 3.14 minutes kadibna beeshadan ku qornaaya position keedii baan geysanayaa maxaan ku qornay halkan aan ku qornaaya mar labaad waxaan leeyahay waxa ay soo baxay 3.14 minutes kadibna cross multiplication x waxa ku dhacaysa 60 x waxa ay la macno tahay hal inta ku dhufo 3.14 dhinac kasta waxaan u qaybinayaa 60 dhinacana waxaan u qaybinayaa 60 x waxa ay la mid noqonaysaa 3.14 oo loo qaybiyay 60 oo ah 0.052 markaan u soo gaado 3 decimal place markaan u soo gaado haddaba iyadana wax leeyahay asxaabi qaabkaasi baynu kula soo baxaynaa teena ugu dameysa waxaynu ku xisaabinaynaa iyada waxaan haysanaa maanta bounty baan haysanaa oo maanta wax aan bedelo inaan bedelno ama isu qaybino maanta muhiim aha 0 waxaan haystaa 0.7 minute baan haystaa degree baa laga rabaa inaan bedelo labadaas cross multiplication waa 60x waxay la macno tahay hal baa ku dhufanaya 0.7 waa 0.7 dhinacana 60 baan u qaybinaynaa dhinacana 60 baan u qaybinaynaa x waxay la macno tahay 0.7 oo loo qaybiyay 60 waxa ku soo baxaya qiimadan 0.012 markii loo soo gaabo 3 decimal place
هذا أصحابي واحد اللي عشر كنا ما أنتنا وحين كوبا عنه وحين كوبا رني minutes يدكري وحي كليه وحن كير هذين لبضوا ولا بها البيك والله استعماله إن حاجة واحد اللي هذا الوعد شن minutes بالورن كرا شن دكري بالورن كرا لبضوا بالورن كرا إن سيدو كلا أرضي وإنه أود ولا هي دكريجا إنه بدله minute سيدو كلا وإنه أود ولا هي دكريجا إنه أسوء بدله minute يعني ما minute بالوسينة يا دكري بدليسها أما دكري بالوسينة يا minute بدليسها هذا استعمالها يا halkii degree waxa uu ila dhigmaa 60 minute xeerka adigoo isticmaalaya ayaa la rabaa inaad wax la yiraahdo dabaqdo hadaba asxaab intaasaan ku soo gabagabeynayna casharkeena inta aynu kulmi doono asxaabi kan kiisa xiga waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah